dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen maanseyahanadii waaweynaa markay doonayaan nin magac leh asii degaan ahaan ay ku kala fog yihiin inay fariin u dirsadaan waxay tirin jireen gabay kolba danta ay ninkaa ka leeyihiin ay ku sheegan jireen kaas bay usii dhiibi jireen gabay xambaar ciddii uu gabyaagu u tiriyey u geyn jiray badanaana waxay tixda noocaasii ku bilaaban jirtay arar gabay xambaarka loogu duceeyo taasoo ku dhirigelisa si niyada intuu u xafido inuu haddana si niyada u gudbiyo ducada ka sokowna gabay xambaarka qudhiisu wuxuu ku naaloon jiray kuna filaa in meeliska tixda ugu horreeya uu gabyaaweyni magaciisa ku xuso taasoo ahayd wax ragga soomaalidu ay aad u jeclaayeen gabayada fariinta ah madaxda oo keliya uma uu diri jirine wuxuu kaloo maanseyahanku u dhiibi jiray nin kastoo magac weyn leh markaasna uu dan ka leeyahay iyo mararka qaarkood tol idiloo uu guubaabinayo ama qaar ka mid ah uu ka eed sheeganayo amaba uu ku dhaliilayo dhacdo inta la soo gudboonaatay aanay siday mudnayd u maaraynin madahaygana tusaalaha ugu wacan ee ararta noocaasna loo soo qaadan karaa waa tii allaha u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan uu ugu furfurtay gabayadiisa kuwa ugu caansan midkood kaasoo ahaa fariin uu u diray degmo reer doolooda oo uu jeclaa inay daraawiishii halgankiisa ku soo biirto waxay ahayd cid ay degaankeedii dagaallo sokeeya ku qabsadeen aadna ugu naafatay dhac iyo dil aan turiisha lahayn cid lagula kacayo inta tiro loo sheegtay qax iyo barabax la baday degmo indoora oo barbaarteedii ka mid ahi ay dabadeed is aragtay iyaga oo duud xamaal berbera ka ah hindigii baaniyaalka ahaa ee joogi jiray adeegsigiisana naf biday sayid maxamed oo arrintaa aad uga dheregsan ayaa maalintii dambe waxaa taleex ugu yimid erge ay degmadaasi soo dirsatay taasoo markii la waraystay ku warbixisay inay sahan ahaayeen waxay sheegeen dhowr jeer oo ay tashi isugu yimaadeen inay ishaybiyeen maamuladii dhulka soomaalida waayadaa ka jiray koodii ay garabsan lahaayeen ma ingiriis iyo rayad bay ku biiraan ma daraawiish bay noqdaanoo nugaal bay u soo hayaamaan mase reer kenadiid iyo hobyo ayay la bahoobaanoo la jaal noqdaan aad buu sayidku warka sidaasa ugu guuxay waxaa u muuqatay sahankaas inaan daraawiish lagaga rayn karin inaan hanti iyo cududba lagu gaari karin degmada ergadu ka timidna ay iyaga dooran doonto markaas buu raggii mid mid u xooleeyey mid ugu arratiray midna kalgacal gaara u tusay dhowr toddobaad kadibna iyaga oo daraawiish wada riman bay anbabax u faarumaysteen maalintaas buu sayidku tiriyey gabaygiisaan fariinta ah ee uu ugu talagalay inuu ku soo leexsado degmadii ay ergadaasu ka timid ayna ku noqonaysay intuu cid kale ku aamini waayey waa gabaygii uu qaybsiiyey darwiish la odhan jiray xasan gaaruf qaloombi oo ahaa nin ergada lahayb ah oo ay garanayeen asi aan horay iyaga uga mid ahayn arar wada murti ah oo kolkol dulucda gabaygaba laga jecel yahay ayuu ku bilaabay taasoo uu xasan ugu ducaynayo bilowgaba wuxuu ku xusuusiyey amintu inay kaliil tahay uuna ku sadcaali doono hawd oo hawkar miirana kulayl miiranahoo haraad iyo dhanqalan miirana markaas buu ugu ducaynayaa guud ahaanba dhibta sadcaalka in rabbi u fududeeyo oo inta uu waddada hayo cirka meelaha dushiisa uu cadar uga dhigo kob aanu ka filayna uu biyo ka siiyo wuxuu u rajaynayaa inuu ka badbaado qodxa mudo oo ay cagtiisu la hurgunto iyo jirdaha dogobada dhulka daadsan oo uu ku turunturoodo wuxuu yidhi xasanow hub qaadaye haddaad naga hagaagayso hiyigaad ka sara joogsatay oo hiratay laabtii haddaad hiirta waaberi sangaha harabsatoo fuusho hilinkaad ku dhici waa midaan laga habaabayne waatuu haloosiga ahaatan iyo hiiraane ha yeeshee waxawd lagu yaqaan hawkar iyo oone haddoo aynu joognaana waa hoga kaliileede habaas idinku duula iyo boor hiriba mooyaane alli harada noo buuxin jiray kuma arraadsiiyo hinni awdan xagar huurahoo halow ka soo duuli hunriga iyo kuleelkoo sidii holac ku leefaya hagoog layra halac kaa astura lagugu hoosaasi hurgun gocandho hiil qodaxle iyo hiijo iyo qaare hurmood gubad leh dogob huuralow hadagu naafteeyey hirrigtaad maraysiyo jirduhu kuma halaakeeyo intaas oo keliya ducadii uguma ekayne wuxuu haddana eebbe uga baryayaa inuu ka indhasaabo dugaaggii iyo duurjoogtii waagaas dhulka soomaalida ka buuxi jirtay haatanse gabaabsiga ku ah sida wiyisha geriga qalanjada maroodiga dhurwaaga shabeelka dawacada
weerka yeyda halaqa waabaayadiisa dadka ku laaya iyo garowga cidiisa la sharaysto ugu dambaystiina waa kii wadaadka ahaayee ma uu iloobin xasan iyo ergadaba inuu u xirsixiro gaar ahaanna suuradaha watiin iyo liilaafi quraysh uu balaayo xijaab uga dhigo wuxuu yidhi wiil hagaf leh aar soo handadi hiija qaba reemi hirdi madax hankoobsiga ciddida mici haliilaysa hurdangeli haraatida lugeyd qalanjo heeraaya hunufaa dhurwaa iyo dugaag si uu haraaqaaya shabeel horora hayrabo dawaco haram cadguuxaya dhidar harab leh halowyaalo weer haalufada yey ah bahal hoose halaq baas intii had iyo waabayle haawayda meertiyo colkiiyo haayirkiiyo tuugga galow hirrifle iyo jugley wadana hawhawle weliyada hanuunaan bariyey iyo hodanka yaasiine habheebaha jidaasha iyo daal hanaqgo-ii dowga habeen iyo dharaar ee bahay hadima kaa baaji hor iyo gees hareer iyo gadaal halal nabaaddiino hoygaagu heeraar watiin hoyasho liilaaf leh hayaakiil ducaan kuu naqee hibada aaminso arartaas ducada ah kadib wuxuu sayidku u gudbayaa dulucda iyo gabayga weyn isaga oo toos ula garnaqsanaya cidda ay ergadu uga timid mar wuu gacashanayaayo madaxa u saraaxayaa marna wuxuu ku eedaynayaa inay ka abaaldhaceenoo cadowgiisa ay jeelka la safteen dabadeedna uu ku tuuray habaar laga aqbalay kaasoo ay ku muteen ba'a iyo basanbaaska ay weli la dabandeebayaan dabadeedna ujeeddadii uu gabaygaba ka lahaa intuu u daadego ayuu ku gubaabinayaa inay daraawiish u soo guuraan isaga oo ku hungurigelinaya geel iyo farda aan tiro lahaynoo ay cayrnimada kaga baxaan xeryahooda mararna uu ka buuxin doono qaybtan oo ah tii uu gabayga ku soo gebagabeeyeyna wuxuu ku yidhi anigaa idiin huba waxaad ku himbiliyootaane kuman heegma kuman haawiyo hadi ka dooyeeya kuman yaal hanqaaraha kabtiga samada heehaaba kun haloosi kuman hayrafoo dabada hoogaansha kun halqooqa wada taagayoo hadda la cayaara heesaan idiin saarayaa xamarra heeg dheere horweynaan ku soo shubi xeryaha haawadee maranay caanaha haleelada dhashay baad habacsan doontaani haamaha karuurka yaad sidii heeshiguu dhiciye nin ragaa hamiyee caalle waa hogashadiisiiye haydaarta meeshii leh waa laga huleelaayo waa lagu hirtaa meel hadday halaba kuu taalle hub iyo maal hantiyo xoolo iyo hoo aan dami haynin waxaad iga hawaysaanba waad iga helaysaane soo heel dhowdaay deeq allaad ka hirqan doontaane bu gabaygaasi ciddii uu sayidku u diray ma gaaray waa su-aal meesha ku jirta si aan jawaab sugan loo hayne barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta dhegaystayaal halkaa ha inoo joogo waa inoo goortan goorteeda iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo